xafiiskan oo ah mid ka bixiya adeegyada guud ee bulsho ee dawladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa waxaa markii ugu horeysay loo soo wareejiyay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag si shacabka Soomaaliyeed loogu fududeeyo howlaha ay u baahan yihiin halka markii hore ay ahayd inay tagaan xarunta dawladda hoose. xaruntan adeegyada ay bulshada Soomaaliyeed ka heli karaan waxaa ka mid ah bixinta shatiyada, shahaadooyinka kala wareejinta guryaha, diiwaangelinta, dhalashada iyo sugnaanta iyo sidoo kale kaararka aqoonsiga ee dawladda hoose. laga soo bilaabo 8 subaxnimo ilaa iyo casirliiqii ayay shaqeeyaan laamahan waxaana mahdiyay ganacsatada iyo shacabka kale ee loo fududeeyay wixii ay u baahnaayeen. waxaa ka mid ah ninkan oo ah ganacsade isla markaasna dhalinyaradan firfircoon ay si wanaagsan ugu adeegeen. wuxuu ka waramayaa xafiiskan iyo shaqada loo qabtay. anigoo oo suuqa bakaar ganacsatada ka mid ah waxaan aad ugu faraxsanahay lacagtan oo shaqada laga qaadayo barnaamijyadii hore oo aad leegu soo fududeeyay oo maanta degmada gobolka aan tagi jiray oo hadda aad ugu faraxsanahay oo degmada kali aan ku akahay aad ugu faraxsanahay waana ku qanacsanahay. markan waa xarunta degmada Hodan. isla xafiiskan shaqaalaha waxay ku guda jiraan u shaqaynta bulshada halkan isugu timid oo intooda badan ah ganacsato doonaysa shati. waxaana dadkan ay intooda badan sheegeen in tallaabadani ay tahay mid wanaagsan oo horey loo qaaday sidoo kalena loogu dhimriyay ganacsatada. waxaan u socdaa inaan la kulmo madaxa shatiyada ee degmada Hodan si aan u ogaado in dadku ay la qabsadeen xafiiskan cusub. waxaan maraynaa degmadan kaliya shati waxay ka maraysaa 784 shati inkastoo gobolka Banaadir ay inta badan ay u gudubtay laakiin waxa meeshaan noo go'ay adiga 200 iyo xoogaa waa noo marayaan muddada isbuuca. dadkana waa u shaqeynaa 24 saac xataa anaga ciidan kuma dalbano dadka ayagoo caadi ay yimaadaan raalli iyo barnaamijyada idaacadda lagu sii daayay inay muxuu ahay degmada ay waxay adeegii guud ee dawladda hoose uga furan yihiin. gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobo ayaa sheegay in maamulka gobolku uu xafiisyadani u hirgeliyay si loo fududeeyo shaqada iyo adeegida shacabka gobolka ku nool. sida aad hadda aragteen qaabka shaqada u socoto xafiiskan muddo 10 cisho hadda furan yahay. dad badan uu aadi jiray adeegyada dawladda hoose sida shatiyada oo kala ganacsiyada degmada Hodan waxaa ku badan goobaha ganacsiga badanaa waxaa dhib ku ahaan jirtay qaybaha kala duwan ee degmada dadka degan inay inta gobolka tagaan baabuur iyo inta bajaaj si raacaan traffic iyo muxuu ahaa jaamka jira daraadid iyo mararka qaar ay u suurtagali jireen ama ay ka waasan jireen. taas waxaa keentay in hadda wixii dhan loo soo fududeeyay gurigooda agtiisa la keenay degmadii loo keenay ay u fududaa hadda qofka markii inuu degmadii inta yimaado adeeg u baahnaa shatiga ganacsiga iyo howlihii kala degmada uga baahnaa inay u fududaato. Nasr Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho.